waan insalaam dhamaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan kaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan mar walba muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibyaal maanta waxaan leegi doonaa sheekooyinkii ugu dambeeyay arrimaha aflaamta balse inta ugu gudagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa janaalka soo birto muuqaalka dadka ee shalaagi noo saar si share garay oo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibyaal kada ugu horeysan ku bilaabi doono muuqaalkeena waxa weeyaan waxaa shaac laga qaaday filimka lagu magacaabo Bati Badni oo rubuudu qaybtiisa labaad in la daawan doono March sanada 2026 marka laga filimkan waxa hogaamiyalkooda Ayushman Kurana gabadha uu dhalay Saif Ali Khan Zara Ali Khan iyo sidoo kale gabdhaha kale ah waa Miqa Gabi iyo Rakul Britisin marka laga filimkan qaybtiisa koowaad sanadii 2019 ayaa la sameeyay waxaana hogaamiyinka Jalaga lagu magacaabo Aryan filimkan Mudazir Aziz ayaa director ka isla qaybta lamaadna asiga ayaa director ka marka laga filimkan waxaa la rajeynayaa in tiyaatar la saaro March sanada 2026 sheekooyinka la soo qaaday kan waxa qayb ka ah director kacanka Subashjay ayaa shaaca ka qaaday in filimka lagu magacaabo kan ayaa qaybtiisa labaad la sameyn doono filimkan qaybta koowaad sanjeedud ayaa hogaamiyinka isla qaybtan asiga ayaa qayb ka noqon doona laakiin waxa xusid mudan in actor cusub lagu soo dari doono filimkan sida wararka qaar ay sheegayaan waxa la rajeynayaa in shaqadiisa la gudagalo wixii ka dambeeyo 21 bishan October sanada 2025 sheekooyinka la soo qaaday kana saaxiibyaal waxa qayb ka ah filimka lagu magacaabo Kantara Chapter 1 qaybta Hindiga markaan eegnay wali wuxuu ku socdaa si xawli ah marka la eegnay isbuuciisa labaad wuxuu soo xariyay in ka badan 168 karoor qaybta Hindiga weeyaan laakiin total gudaha Hindi marka la eego filimkan wuxuu ka talaabay 700 oo karoor saaxiibayaal sheekooyinka la soo qaaday kan waxa qayb ka ah maalintii shal ah waxa bandhig weyn kaga qayb galay gudaha dalka Saudi Arabia jilaal uu kamid yahay Salman Khan Shah Rukh Khan iyo sidoo kale Amir Khan barnaamijkan Joy Form ayaa lagu magacaabaa waxa soo qaabiyay boqortooyada Saudi Arabia marka la eegana waxa looga hadlaa ama la isku keenay dadka ugu caansan caalamka shirkadaha tiknoolajiyada iyo sidoo kale shakhsiyaadka caanka ah Salman Khan iyo sidoo kale Shah Rukh Khan Amir Khan waa lagu martiqaaday marka la eego jiraayashan hadalada ay soo hadal qaadeen ama sheekooyinka soo hadal qaadeen waxa qayb ka ah Salman Khan wuxuu yiri wuxuu aad u amaanay filimka ama taxanaha Birds of Bollywood oo Aryan Khan oo Shah Rukh Khan wiilkiisa uu ka yahay director wuxuu yiri maalin waxaan jeclaan lahaa inaan arko Shah Rukh Khan iyo sidoo kale wiilkiisa oo de film wada sameynaya halka Shah Rukh Khan asigna uu yiri hadduu Salman Khan wiil la lahaa waxaan jeclaan lahaa inuu noqdo biggest superstar jilaa weyn dhanka kale sheekooyinka aan soo qaaday kan waxa qayb ka ah gabadha lagu baahan Zara Wazim waa gabadhii ku soo canbaxday filimkii Dangal oo markaan hogaamiyaha ka ah Secret Superstar sidoo kale qaybta ka ee shalay shaaca ka qaaday inay guursatay gabadhan 2019 ay shaaca ka qaaday inay fankiis kaga baxday diinteeda darteed gabadhu waa muslimad laakiin shalay jumcaha ay barteeda Instagram ku shaacisay inay guursatay 6 sano ka hor ay fan ka baxday 24 jirna waa ay ku guursatay saaxiibayaal ugu dambeyn markaan eegnay sheekooyinka la qorayo waxa kamid ah Sinidol iyo sidoo kale JK Sharif Mitum Jagraboti Sanjeedud filimkoodii Bab waa ay soo gabagabeeyeen filimkan waxa la rajeynayaa sanada 2026 intii haatada la saaray saaxiibayaal ugu dambeyn haddii aan eegno maanta oo kale aflaamta soo baxan waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Rajaag iyo Aayinkii Baarad ama Maalaha Qaaga dhacso maanta oo kale ayuu soo baxay 18 October sanadii 1996 Saadab Khan iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Rani Mukhraji ayaa filimkan hogaamiyalkooda ahayn Guljan Grover ama Indhaxar waxa uu taqaana qayb ayuu ka ahaa filimkan marka la eego natiijo ahaan average ayuu noqday ama filim guul gaaray haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeeyay muuqaalkayga fadlan muuqaalka dadka ee shalaagi noo saar si share garay oo la wadaaga asxaabtaada waan ku maasantahay daawashada muuqaalkeena